waan kusii jeclaan doonaa ilaa jacaylku ka idlaado jiritaankiisa ama aan ka dhinto. jacaylkaaga waxa uu baaqi ku ahaan doonaa qabrigayga isagoo ubax ah. waxaan kuu jeclaaday si aan abid qof loo jeclaanin. waxaad qalbigayga milkisay adigoonan ila hadlin. bal ka waran haddii aad ila hadli lahayd amaad ila daadihin lahayd jacaylka. waxaan kuu sheegayaa inaan keliya ka helin jirkaaga, codkaaga iyo quruxdaadaba, balse ay ii dheertahay inaan ka helay shakhsiyadaada qofeed. haddii la i weydiiyo waxa harqiyey xubnahayga oo idil, waxaan ku jawaabi lahaa jacaylkaaga. ishaydu waxay qabatay nuurkii ugu qurxoonaa ay abid aragto hal milicsi oo keliya. dhaayahayu kama buuxsan karo daawashada wejigaada. iftiinka ka soo baxayaad moodaa qorax sii gabaldhacaysa. waayuhu keliya ima baraan casharo ku saabsan nolosha, balse sidoo kale waxay i baraan casharo ku saabsan ashqaraarka jacaylka. haddii aad garanayso qof aniga iga kaa jacayl badan, i tusi qofkaan u hambalyeeye kadibna aan dhaafiye dunida.